Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada. Hooyada inta ay uurka leedahay in ay la socoto xaaladeeda iyo isbedel walba oo ku imaanayo waa arrin aad muhiim u ah. Cadaadiska dhiigga waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la rabo in si joogto ah loola socdo. Normal ahaan waxaa loogu talagalay in uu ahaado ama uu u dhaxeeyo 120 ilaa 140 oo kor ah iyo hoos oo ah 80 ilaa 110. Hadduu ka yaraado 80 waa xaalad aan wanaagsanayn. Inta badan hooyooyinka waxa uu keeno mataga faraha badan ama cuntada ay qaadan weyso. Hooyada waxay isku arkaysaa tabar yari, dhidid, indhaha oo madoobaanayo iyo wixii la mid ah. Waxaa qasab ah in kor loo soo qaado cadaadiska dhacsan waayo waxa uu keeni karaa xaalado kale oo ku yimaada hooyada. Hadday u baahan tahay isbitaal si loo siiyo faleebooyin iyo daawooyin energy ka helayso, waa qasab inay dhakhtar la xiriirto. Ama haddaysan qaadan cunto sida quraacda iyo wixii la mid ah, waa inay isla markaa ku dadaasho sidii cunto u qaadan lahayd. Hadduu jiro matag zaid ah, waa in la sameeyo matag joojin oo ay la xiriirto dhakhtarkeeda. Haddaba qaybta aan rabno in aan ka hadalno waa marka cadaadiska dhiigga uu ka sare maro normalkii loogu talagalay. Waxaa loo yaqaanaa dhiigkarka uurka ama pre-eclamptic. Dhiigkarka uurka waxa uu ka mid yahay xaaladaha ugu halista badan ee soo wajaha hooyada. Inta badan waxa uu keeno walwalka iyo stresska ama hadduu jiro family problem. Sidoo kale haddaysan hooyada kontarooli karin xanaaqeeda oo ay aad u xanaaq badan tahay, ayadana way keeni kartaa dhiigkarka uurka. Calaamadaha ay hooyada isku arki karto waxaa ka mid ah barar qaybo ka mid ah jirka sida lugaha iyo gacmaha, wareer, madax xanuun siyaada ah, aragga oo laba noqda, xanaaq fara badan. Cadaadiska dhiigga markii la cabiro waa uu ka sareeyaa normalkii loogu talagalay. Daawooyinka loo isticmaalo dhiigkarka uurka waxaa ka mid ah in number 1 lagu sameeyo hospitalization wax loo yaqaano ama lagu siixiyo isbitaalka, in laga joojiyo waxyaabaha sababay inuu cadaadiska dhiigga kordho sida hadduu jiro family problem ama stress adiga ku haysto. Sidoo kale dhakhtarkaaga waxa uu go'aamin doonaa daawooyinka aad isticmaalaysid iyo xilliyada ku habboon. Haddii aadan la xiriirin dhakhtar si loo dejiyo cadaadiskaas dhiigga ee sareeya, waxa ay isku bedeli doontaa wax loo yaqaano gariiriso ama eclamptic. Gariiriso hooyadu waxay isku arki doontaa calaamad ahaan in miirka uu ka tago oo ay noqoto unconscious. Sidoo kale waxa ay ruudi doontaa carabka. Haddii urine ama kaadi laga qaado, borotiinkeeda wuxuu noqon doonaa 3+ ama 3+. Haddii aad ku aragto hooyada inay ku jirto xaalad gariirisa oo miir aysan lahayn, carabkana ay ruugayso, fadlan ha isku dayin in xubin jirkeeda ka mid ah aad toosiso sida gacmaha ama lugaha, waayo waxaa imaan kara jabniin haddii aad isku daydo inaad si qasab ah aad ku toosiso. Waxaad ku dadaashaa sidii aad ku gaarsiin lahayd xarunta caafimaad ee kuugu dhow. Daawada ugu wanaagsan ee gariirisada waa in hooyada laga soo saaro cunuga. Xaaladahan oo kale hooyada waxay ku mutaysan kartaa wax loo yaqaano emergency CS si loo kala badbaadiyo hooyada iyo uurjiifka. Ka hortag si aad uga hortagto xaaladan dhiigkarka uurka iyo gariirisadaba. Number 1, marka ugu horeyso la soco xaaladaada caafimaad oo mar walba ku xirnaa hospitaal oo la xiriir dhakhtar. Midda labaad, iska yaree wax walba oo kuu keeni karo stresska iyo walwalka. Jooji fikirka badan. Sidoo kale haddii uu jiro family problem, ku dadaal inaad xaliso. Waa ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Fadlan kusoo biiri channelkeena. Hadduu Allah yiraahdo waxaan idinla wadaagi doonaa mowduucyo aan isleeyahay wax un way u tari doonaan hooyada uurka leh. Mahadsanidin.